kulan maanta ay iskugu yimaadeen magaalada Muqdisho culumowdiinka Ahlus Sunnah wal Jamaaca ee gobolada Jubbooyinka iyo Shabeellada Hoose ayaa waxay ka soo saareen kulankaasi war-saxaafadeed ayadoona war-saxaafadeedkaasi uu akhriyay saxaafadda Ismaan Sheekh Axmed oo ka tirsan culumowdiinka Ahlus Sunnah wal Jamaaca ee gobolada Shabeellada Hoose iyo Jubbooyinka. Bismillah, alhamdulillah, thana'u lillah, salatu wa salamu ala rasulillah. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وجد ورصحافدين شرح أساسي أو أياشين علماء الدين كأهل السنة والجماعة قبل كشف الله هوسية جبوينك شركاس أو سعودي لقب الله شنتي بشي أفراد إلى شن يتوانكي بشي أفراد شركاس أو أي كسو قيب قالين دمان علماء الدين كسو جهده قبل كشف الله هوسية جبوينك سيدا طريقة شيخ علي ماي بسم الله الحمد لله ثناء لله صلاة والسلام على رسول الله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وجد ورصحافدين شرح أساسي أو أياشين علماء الدين كأهل السنة والجماعة قبل كشف الله هوسية جبوينك شركاس أو سعودي لقب الله شنتي بشي أفراد إلى شن يتوانكي بشي أفراد شركاس أو أي كسو قيب قالين دمان علماء الدين كسو جهده قبل كشف الله هوسية جبوينك سيدا طريقة شيخ علي مؤمن شيخ حسن يوسف شيخ علي مي شيخ مرجان شيخ فرحان شيخ نور شيخ أحمد يري شيخ محمد بيمال وبراوي يكو وكل أوفر بان وحانا أي اسكر راعين إن أي دستان قولا أي كون بدايسيهين ولما قعب بحي قولها علماء الدين كأهل السنة والجماعة قبل كشف الله هوسية جبوينك وحانا قدومية أي أدورتين شيخ محي الدين شيخ علي مؤمن iyo afayeenka oo Sheikh Ismaan Sheikh Ahmed Umar iyo xubno kale ugu dambeyn waxay soo saareen qodobadan hoos ku qoran koow inay difaacaan diinta islaamka iyo aqoonta saliimka ah labo waxay u diyaar garoobeen in ay ka saaraan khawaarijta haysata gobolada kor waxaa kale oo ay isku raaceen in ay la kaashadaan cid kasta oo gacan ka siinaysa dagaalka ka dhanka ah khawaarijta afar waxaan soo dhawaynaynaa qaybaha kale ee ku hawlan iska xoreynta khawaarijta shan waxaanu ugu baaqaynaa dadweynaha Soomaaliyeed ee ku abtirsada Ahlus Sunnah wal Jamaaca in ay iska dulqaadaan heeriyada gumaysiga cusub ee ku dhisan baabi'inta aqoonta iyo diinta islaamka wabillahi tawfiiq. gudoomiyaha loo doortay gobolka Shabeellada Hoose iyo Jubbooyinka ee culumowdiinka Ahlus Sunnah wal Jamaaca Sheikh Muxdiin Sheikh Ali Muumin ayaa hadal ka jeediyay kulanka. waxaan ku faraxsanahay arinta tan hadda la ii doortay abaabulkeedana anigu aan lahaa hadii hore nimankaasina waan ogeyn weligoodana waa ay jiri jireen haddarna waxaan go'aansanay in aan iska qaadno heeriyada ay nagu hayaan ama gumaysiga ay nagu hayaan nimankaas oo khawaarijta hadda dalka gumaysata oo meel kasta haysata إلهي نوح يري قوم اسكما بدلان سيدا أيهين إن الله لا يغير ما بقوم إلهي كما بدلوا قوم وحا وحيين إله أيهو اسكا بدلان مركا أنه هو اسبدل لي إلهي إذن كيس وأنا كقولي صدقنا إن شاء الله تعالى afhayeenka loo doortay gobolada Shabeellada Hoose iyo Jubbooyinka ee culumowdiinka Ahlus Sunnah wal Jamaaca Sheikh Ismaan Sheekh Axmed
ayaa sheegay inay taageersan yihiin wafdigii ka socday culimadiinka ahlusunna wal jamaaca ee ka yimid gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya. Jazakallahu khayran. Walaal horta fidnada ay dadkani abuureen dadka ku kacay dhammaan way midaysan yihiin hadafkoodii caqiidadooduna waa mid. annaga waxaan aaminsanahay haddii aanu nahay culimadiinka gobolka Shabeellada Hoose inaanu walaalaha iyo isku midnahay isku caqiidanahay cadawayaguna uu mid yahay. isla waqtiga waxaan aaminsanahay afhayeenka maxaan ku idhaahdaa bari ka yimid ee hadda socdaa inuu afhayeenka guud yahay gudoomiyaha xaga ka yimidna gudoomiyaha guud yahay annaguna faraacidii aan nahay sidaas ayaan aaminsanahay halkan kuna midaysan yahay wabillahi tawfiiq jazaakumullahu khayran. kulanka maanta ay iskugu yimaadeen culimadiinka ahlusunna wal jamaaca ee gobolada Jubbooyinka iyo Shabeellada Dhexe ayaa wuxuu daba socdaa kulan shalay ka dhacay magaalada Muqdisho ka ay iskugu yimaadeen culimadiinka ahlusunna wal jamaaca ee gobolka Banaadir ayadoona halkaas lagu doortay xogayaha gobolka Banaadir ee culimadiinka ahlusunna wal jamaaca. Xasan Hirs Roble warbaahinta dhacdooyinka magaalada Muqdisho.